annaga markaan dawladda la wareegnay 6 xaafadood oo xamar ka tirsanaa madax ka nahay ayaga laftigooda shabaab nala jooga war waxaan dhahnaa annaga bad kama hadli karnay wax kale aan ka hadalno ma jirto ala kulli xaal waxaan ku qancinaa dawladda Kenya bad kama hadlayno waa ka soo tagnay muddo kadib arinta dadaalka UN-ka iyo dawladda Norway ayaa bilaawday oo ku aadanay arinta continental shelfska xukuumadda waxa lagu qanciyay arintaas inay laga maarmaanta annaga iyo Kenya ana wax iska dhahno Ra'iisul Umar Abdirashiid isaga xukuumadda hogaaminayay go'aanka asaga iyo xukuumaddiisa qaateen sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan laakiin أنا الملأ لا سعودسيني صباح ذا للصحيحة يا عبد الرحمن يصوع واكنا حول مدحون وأرنتها ساجرته هالشيء سال الربائن للصحيحة محي كلته وافكر مدحان قبص دور محي شيء يسار وحائر وصحيح يسار ريزارة وركيسيان عبد الرحمن وابغي عبد الرحمن واحد سوستا عملينا وحائر ريزارة وركيسيان وحي إلهي نقصيبه عمر ويرا وحائر عمر ومحا يقرس أرنتان حودانية وحمودينا أكتها سيكو أغانا مركي بقايلة عرك اسكو درسنت بدي يقتانا وحين قتاني عمر إيه عبد الرحمن كشكي أنا يا عبد الرحمن واكنا إيه عمر ولقى الناس كم ورث إن الأركبركو أركنك العقل وجه سجلي استغفر الله مركا إلها مهلا نجحوري أرنتاس رئيس عمر عبد الرشيد يا عبد الرحمن وكم سيهين وزير بدنا الجوجي ويجسوا دعوة عبد الرحمن حكمنا وزير كريمات بدو أمار وزير كاشان ديجا جوريلا شريف حسن النيروبي جوجي كله يسود دعوة ايوه قيلنا يصوعين marka alxamdulillah ilaa mahalla taas xaqaas uga gudbayna wa soo dhaweynana go'aanka maxkamadda halkaas waxaan ka garanaynaa sharcigu sida uu fiican yahay Soomaaliya iyo Kenya maanta ma tartami karaan laakiin sharcigu nin xoog leh iyo niman xoog leh kala ma yaqaan waxaan naga rabo waxa waaye dad sharciyeed inaan naqano marka sidaasaan dawlad ku naqa karnaa oo macna ku sameey karnaa dalkan mushkiladiisu waa sharcigoon la ixtiraamaynin waxa ugu horeeyo sharciga duminayna waa madaxda shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican dawladnimada jecel diyaar u inay hoggaansamaan laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa madaxda dalka marka waxaan rabnaa in dad sharci aan naqano qodobkaasna halkaas aan rabaa inaan uga gudbo